بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا ليال وفدقني شناد فديada فتاويه بشهر رمضان aynu ku su'aalo weydiisanaynay ama aynu ka fatwo dalbaynay sheekheena Sheekh Maxamed Cabdi Umal. fadhigeenan galabta sheekhana su'aasha koobaad waxay leedahay: sheekh anoo suxuuranaya oo afka ku haya haddii aan maqlo aqimkii salaada markii horena aanan maqlaynin aadaankii suxuurta lagu joojinayay, maalintaas soonkeeda miyaan soo celiyaa? بسم الله الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، suxuurtu waxay ku eg tahay aadaanka salaada subax wixii ka horeeya, maxaa yeelay isagaa wuxuu tilmaamayaa inuu waagii baryey: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. marka haddii uu waqtigaa kadib ruux intuu ismoodsiiyo inuusan waagii baryin ama aadaankii dhicin uu cuno ama cabo ama wax soonka jabinaya uu sameeyo isagoo isleh weli lama gaadhin waabarkii, markaasi waxaa waajib ah markuu ogaadee ugu horeeya inuu tufo waxa afkiisa ku jira. qodobka labaad, maalinkaa maqalaynayaa say u badan yihiin culimmadu waxay leeyihiin ha soo qalleeyo, laakiin culimmada qaar ka mid a waxay qabaan maadaama ismoodsiis dhacay oo uusan u qastin ma soo celinayo maalinkaa wuu soomanaanayaa mana soo qallaynayo, saasuu ku asaxayaa. waana a'immada taabiciinta qaar ka mid a maray sida mujaahid iyo xasan albasri, riwaaya can imaam axmed weeye. waxaa tooranaya a'immada shaaficiyada alimaam almusani, shaykhulislaam ibnu taymiya sidoo kale wuu dooranayaa. sidaasaana daliilka u dhow ina maalinkaa uuna soo celinayn ruuxa, maxaa yeelay waqtigii nabigeenna sal alla alay wasalam sida xadiidka sahl ibnu sacad tilmaamayo fii saxiixi albukhaari wa muslim, markay aayadda qur-aankii soo degtay وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود intaasaa soo degtay min alfajri markaa ma soo degin. saxaabada qaar ka mid ah marka waxay u fahmeen labada liilan ee midna madow yahay midna cad yahay ee ayadu ka hadlayso laba xadhig ama laba liilan oo caadi ah. markay suxuuranayeen ayay riwaayada qaarkood waxay leeyihin midba lugtuu ku xidhay, mid waxay leeyihin uu isaag dhigay. suxuurtii wuu soo waday iska cunayey, kolkuu is yidhaahdo muxuu ahay ma la gaadhay waqtigaad joojin lahaydba wuu fiiriyaa. si uu waday guri buu ku jiraa, labada liilan ama labada dun ama labada xadhig goorta midabkooda uu kala gartay midna madow yahay midna cad yahay guriga gudihiisa markaasuu joojiyey cuntadii. nebiga sal alla alay wasalam ayuu u yimid, arrintiibuu nebigu ka war helay. markaasuu nebigu wuxuu ku yidhi sal alla alay wasalam lagama wado labada liilan saad moodday ma ahee waa mugdiga habeenka iyo caddaanta maalinta, labada liilan saasay ahaayeen. marka xadiidka waxaa loo daliishanayaa dabcan isagoo waagii bariyey buu wax cunayay oo cabbitaanka iska sii wato iska sii suxuuranayay, fahamkaana la khaldamay oo waxaa keenay ismoodsiis fahamkiisa ku dhacay. nebigu ma dhihin soo celi maalinkaa isagaa salawaatu rabbi wasalaamu caleyh. sidaas daraaddeed baa waxaa xoog badan madhabka dhahaya ma la soo celinayo maalinkaa, laakiin markaaba waxa afka ay ku hayso waa inay tufto waaye, sidaana soonkeeda ku wadato. wallahu aclam. jazaaka allahu khayran wabaarak allahu fiik. saa'ilka labaad waxa uu leeyahay sheekh qofkii
soon niyeysta isagoo xanuunsanaya waliba lagu yidhi ma soomi kartid isla habeenkiina dhinta soonkaas ajarkiisa ma helayaa soon ajarkiisa muusan soomin oo soon ahaan dee maalinkiiba ma gaadhinba laakiin ruuxa muslimka hadduu cibaado niyeysto oo go'aansado inuu khayr sameeyo khayrkuu go'aansadayna duruuftu u diido ilaahay wuxuu u qorayaa ajar buu u qorayaa xadiidka bukhaari iyo muslim ku yimid waa kii nebigu uri sal alla alay wasalam faman hama bixasanatin falam yacmalhaa katabaha allahu lahu cindahu xasanatan ruuxii hamiya doona damca go'aansada inuu wanaag sameeyo oo wanaaggii aan samaynin dabcan duruuf baa u diiday allah wuxuu u qoraa hal ajir buu u qoraa hadduu wanaaggii uu damcayoo niyeystay uu sameeyana ilaahay 10 ajir buu u qoraa marka khayrkuu niyeystay ee ka geeriyooday ajir waa looga qorayaa laakiin dabcan hede ma soomin oo maalinka soonkeedii muusan gaadhin wallahu aclam جزاك الله خيرا وبارك الله فيك سائلك saddexaad waxa uu leeyahay sheekh anigoo sooman irbad ma isku duuri karaa soonkaygaas irbadaasi miyay wax u dhimaysaa irbaduhu waa laba nooc weeye waxaa la yidhahdaa alibar almughadiya irbadaha jidhka dheefiya nafaqeeya oo cuntada iyo cabitaanka macnahoodoo kale leh oo inta badan laga qaato xididada laga qaato kuwa noocaasoo kale ah soonka way jebinayaan maxaa yeelay waxay la macno yihiin cuniddii iyo cabbitaankii irbadana waa irbado aan jidhka waxba ku biirinaynin cunti iyo cabbitaan aan la macno ahayn waa irbadaha xanuunka loo qaato ama sinta ha la ysaga duro ama garabka ha lagaga duro ama xididka ha la raaciyo sida raajixa ah mar hadday xanuun baabi'iye iyo irbadaha dadka lagu suuxiyo waxyaala noocaas oo kale ay yihiin ee markaasi soonka ma jebinayso sidaasi waxaa ku tusaya lianna asalku waxa weeye soonku hadduu xidhmo waxa jebinaya daliil buu u baahan yahay ta labaad weeyaane waxyaalihii soonka jebinayey irbadda caadigii la macno maaha oo cunadiina la macno maaha cabitaankiina la macno maaha oo loogama qiyaas qaadan karayo inayna soonka jebinaynin waa muxuu ahay qaraarka majmacu alfiqi alislaami fataawa lajna daa'ima sidoo kale waxaa dooranayaa sheekh ibnu baas iyo sheekh ibnu cuthaymiin calayhima wacalaa jamiici alculamaa alraxma waridwaan nacam جزاك الله خيرا وبارك الله فيك سائلك أفراد وحولي يا شيخ وحلا يقول لي يا هي شن رمضان شن تاسنو وحانو دحيي وقف مران حاملها مران أمولها يا مران نوجينيي مركا شيخ شن تاسنو سون كودا سين وحلين كرا inaad afurto xaq baad u leedahay haddaad muujinayso iyo haddaad uur leedahay sida xadiidka nebiga ku yimi sal alla alay wasalam laakiin waxaa lagaa rabaa inaad qallayso haddii 5 sano ay gaadheen marka ugu horraysa duruufta kuu saamaxdo yaryaree kolba sidii ay kuugu fududaato oo aad u awooddo u qallee in sha allahu tacaala haddaad keri weydo oy markaasi intay bataan aad awood u weydo oo tabar u weydo markaa madhab baa jira uu leeyahay alimaam muxuu ahaayey ibraahim muxuu ahay oo dhahaya laga warinayo sidoo kale cabdullaahi ibnu cabbaas iyo cabdullaahi ibnu cumar marka madhabkaas oo ah dhahaya cuntay bixinaysaa laakiin waa goortaad kari weydo meelahaas waa laga raaraadin karaa wallahu aclam جزاك الله خيرا وبارك الله فيك سائلك شناد وحولي يا شيخ قف صومن ما دبالن كرا دواء
سما ku cadayan karaa dabaalashadaha uu dabaalan karaa madhabka jumhuurta culimada badankood qabaan iyo madaahibta waxa weeye uu dabaalan karaa laana waxa looga qiyaas qaadanayaa qabayska nabigu sallallahu alayhi wasallam waxa sugan isagoo sooman inuu qabaystay al-Imam al-Bukhari-na aathar buu soo gooriyay saxaabada iyo taabiciinta iyagoo sooman inay qabaysan jireen asalkana waa inay bannaan tahay marka wuu dabaalan karaa laakiin waxay leeyihiin waa inuu taxadaro inaysan biyuhu sanka iyo afka ka gelin oo uusan liqin culimada waxaa jira qaar oo kala qaadaya tafsiil gelinaya masalada u kala qaadaya ruux dabaasha si fiican u yaqaana oo markaa aan ka baqaynin inay biyuhu ay galaan cunihiisa iyo sanka ka galaan iyo ruuxan dabaasha aqoonin oo barbarad ah laana ruuxu markuu barbarad yahay biyuhu liqaa oo way ku tagayaan marka waxay leeyihiin hadduu dabaasha yaqaano oo uu biyaha inaysan liqaynin oo biyaha liqitaankooda iska ilaalin karayo markaasi uu dabaalan karaa hadduuse ka baqayo marka waxay imaanaysaa inuu taxadar qaato wabaaligh fi listinshaaqi ilaa an takuuna saa'iman taxadar qaado markaas sidaasi tafsiilkaana culimada qaar baa gelinaya wallahu aclam bilmunaasaba biyaha gelitaanka laga hadlayaay waa inay afka ama sanka intay ka galaan ay cunaha u gudbaan waay wax laga hadlayo ama inay xagga dambe ka galaan ama dhagaha ka galaan ama indhaha ka galaan waxaasi iyagu maba jabiyaan soonka ma jabiyaan waxa laga hadlaya waxa weeyaan waa inay af galaan ama sanka ka gudbaan oo markaa caloosha u gudbaan waay wallahu aclam جزاك الله خيرا وبارك الله فيك سائلك اللحاد وحوليه يا شيخ cadaygaha waa la caday waa lagu cadayn karaa cadayga asal ahaantiisu waa ruuxa soomani u cadayn karaa cadayga geedkana waa lagu cadayn karaa mawaadan kale lagu cadaydana waa lagu cadayn karaa laakiin waxa uu laga taxadari maadadaad ku cadaynayso inaysan cunaha u gudbin oo inuu hoos aadin waxay la mid tahay biyaha ku luqluqanayso cuntadii baad ruugi kartaa oo dhadhamin kartaa dhadhamisaad iska tufi karaysaa marka sideedaba shay afka uun gaadhay oo ka soo noqday wuxuu doonay ha noqdo soonka wax ma yeelo marka waxaad ku dadaali uun waxaan aad ku cadanaysiiyo maadada macjuumka inuusan hoos u gudbin wallahu aclam بارك الله فيك وجزاك الله خيرا سائلك اللحاد شيخ وحا صون قلعه ayaa laygu lahaa muddo 4 sano ah qallahaas soonkaas wax sabab weyn ah oo aan u gudi waayay ma jirto marka sheekh soonkaas qallaha ah soonkaygan hadda iyo kuwii la soo dhaafayba wax ma u dhimayaa inaad soonka ka tagto ama uu ku dhaafo ama safar ama xanuun ama cudurdaar uu shariicadu ku siisay uga tag ama kas uga tag soonka inaad ka tagto qallihiisa haddana aad dib dhigto laba masalo qallaha waxaa la rabaa intuusan soonka kale kugu soo gelin inaad dedejiso waad soonto haddaad soomi weydo adoon cudurdaar lahaynna soonkii kale kugu soo galo dembiilaa tahay towbad baa lagaaga baahan yahay waxaa kaloo lagaaga baahan yahay inaad soonkan soo galay soonto soonkan soo galay markuu dhammaadana qallihii waa inaad dedejiso qallihii lagugu lahaa waa inaad dedejiso culimmada qaar baa waxay leeyihiin kafaara raacaysa fidya raacaysa waa madhabka shaaficiyada iyo xanaabilada oo waxay leeyihiin haddiiba soon soo galo soonkii qallaha keliya qallayn maysaye waxaad ku daraysaa raashiinna waad bixinaysaa waana madhab daa'ifa min asxaaba ama saxaabada qaabkan laga soo guuriyo iyo taabiciinta qaarkood laga soo guuriyo laakiin daliil intaa ka shisheeya ma laha raashinku oo xadiid male aayad male waxay leeyihiin muxuu ahay
khaladka dibdhigiddan saxaabada qaarkood maadaama ay ka sugan tahay raashiin ha ku daray leeyihin haddii marka waxa weeye soomanka haddana soon kale haddana soon kale dembigin baa sii kordhaya waxaa loo baahan yahay marka laba kafaaraa laasimaysa leeyihin marka laba kafaaro ayaa laasimaysa marka arrintaas waa arrin khalada soonka haddii waqalla kugu noqdo sida ugu dhaqsaha badanaa iska dadejiso waaye umulmu'miniina caaisha radiallahu tacaala canhuma waxay leedahay soon qallaa baa laygu lahaan jiray nebiga adeegga aan u adeegayo dartii baan shacbaan markii la gaadho ramadaanku soo dhowaado ayaan soomi jiray bay tiri qallaha laygu leeyahay yacni sidiisan ramadaan ugu soo gelin wallahu aclam أحسن الله إليك وبارك الله فيك سائلك تضباط وحولي شيخ وحان أهي قبض حنوصان إيسا وكلي لغا بدلي سنكرنا حنونك سنكر وغانا قبطة كما معانك حتى في دي أيام بحيا شيخ بلس الشيخ واحد ترتي انتي آن قان قاري مركا ديكو يقول دعوه ما نقلين ترين صنكا إيقاتك haddana ma soomi karo oo waan xanuunsanayaa markaa sheekh maxaan sameeyaa masaladii hore u dhowdahay waxaa laga rabaa gabadhaasi inay toobad keento leanna dibdhigga ay dibdhigtay ilaa muddada intaa la ego ina qallaynin oo sooman bada soo galeen cudurdaarna ayna lahayn toobad baa looga baahan yahay inay ilaahay u toobad keento oo waxay samaysay ka xumaato oo ka nadaamooto talabaad ee looga baahan yahayna wax weeyaan in ay maadaama hadda ay xanuun daraaddii aan rajo lahayn ayna u soomi karaynin waxay leeyihiin culimmada in badan oo ka mida raashiin bay bixinaysaa qaar waxay leeyihiin laba kafaara laasim ku ah kafaaro waxa weeyaan oo raashiin ah macnaha fidye ah waa ramadaanka u soo galay kafaarada labaadna oo ramadaanada soo galay kafaaray laasiminayaan madhabkii haddaan soo sheegnay oo shaaficiyada iyo xanabilada waxaa kaleeto kafaarada kale ka imaanaysaa bay leeyihiin meeshii soonka waajibka ahayd oo cunto loo bedelay marka soonkii oo cunto isu bedelay iyo soonkii oo intuu soo dibdhacay sooman kale soo galay laba kafaaraa meeshaa ka laasimaysay leeyihiin laba raashin inay bixiso ilaahina u toobad keento tabaaraka wa tacaala ayaa laasim ku ah wallahu aclam جزاك الله خيرا وبارك الله فيك سائلك سديداد وحولي يا شيخ قاجو ومدو القادن كارو دخاتيرتنا وحنون إيقومي شيقين مركا محان كسامي يا شيخ صونك محاكو هاي مركز صومي لهذا روح العذر هايلين أو الحنون هايلين قاجو ومدو القادن كارو دادكو نوي قاجونا يا وانا حنوصنا marka maxaa ku gooniya waa hadaad adkaysato maxaa ku soo gaadhaya miyaad suuxaysaa ma dhimanaysaa ma cudur baa kugu soo kordhaya maxaa ku gaadhaya haddii halis aad gelayso ama khatar aad gelayso ama xanuun kugu siyaadayo waa meesheeda hadday tahay keliyato ma adkaysan karana dee adkayso waa in adkaystaan rabo soonka waxaa la isugu imtixaanay waa cibaado ilaahay ugu talagalay adoonka sabirkiisa in la tijaabiyo saas daraaddeed asal waxaa ka sabirka asarka ah innamaa yuwaffa as-saabiruuna ajrahum bigayri xisaab marka cudurna ma qabo dhibaatana ma qabo gaajana ma adkaysan karo allahuma inay cudur qarsoon ku hayo meesheeda waay marka inaad adkaysatood sabirto haddayna dhib ku soo gaadhayn waa inaad soonto waay wallahu aclam جزاك الله خيرا وبارك الله فيك سائلك سقالات وحولي يا شيخ طبعا بري كهر بش رمضان أيان قرسدي لما مالين مركان صومنا أيان حاس كيجي وقال موضي مالين رمضانا مركان شيخ لما بلاد أو يسكو حيقا مسومي كارو أو ميل كلول أيان جوغا قورنا ما حورين كارو مسكين ما قودين كارو أو هنتي ما هايستو مركان شيخ محان سمية marka horeba isagoo dhalinyaro ah ramadaan aroos ayaa yidhi isaga
haddaad dhalinyaro tihiin ama aad iska baqaysaba waqtiga ilaahay waasac weeye ramadaana aroosanina dhibkaasoo kale imaanaya kan keliya maaha dad badan buu ku dhacay mas'alada ku saabsan ruux isagoo sooman inuu ramadaan galmoodo waa dembi weyn oo toobad u baahan nabigeenna sal alla alay wasalam nin baa u yimid wuxuu yaa rasuula allahi halagtu rasuulka ilaahi waan halaagsamay dembi weyn baan galay waaya maxaa kugu dhacay xaaskaygii baan maalin ramadaana u galmooday markaasaa nebigu wuxuu ku yidhi sal alla alay wasalam ma heli kartaa qoor aad xurayso maya buu yidhi addoonna macnaha wuxuu ku yidhi ma soomi kartaa 2 bilood oo isku xigta ma soomi karuu yidhi ayib 60 miskiin ka quudi baa leeyahay xoo ma haysto yidhi sida ninkan oo kale waay xoo ma haysto waa iska fadhiistay nabiguna waa isaga aamusay intii loo soo jeediyey ma kari karo waa la isaga aamusay meeshuu iska fadhiistay xoogaa haddii la joogayba nabiga waxaa loo keenay sal alla alay wasalam dembiil timir ah timir ku jirto oo sadaqaa loo keenay nebigu wuxuu ku yidhi sal alla alay wasalam kac qaado intan sadaqayso markaasaa wuxuu ku yidhi oo rasuulka ilaahayow ma cid aniga iga baahi badan baan siin buu yidhi yaa aniga iiga baahan magaalada madiinaba kuma noola buu yidhi qoyskayga ka baahi badan marka yaan siin waayo nebigu intuu qoslay buu wuxuu ku yidhi sal alla alay wasalam waayahay kac qoyskaaga sii buu ku yidhi reerkaaga sii marka kafaaradaasaa ka laasimaysa towbadna way ka laasimaysaa inuu maalinkaa soo qalleeyana way ka laasimaysaa hadduu yidhahdo ruuxu ma kari karo oo wahsi iyo ismoodsiis iyo waxaad adigu iska dhaadhicisay ah kafaaradu kaaga dhici mayso laakiin karid la'aan xaqiiqi ah hadda markaynu joogno mid lama kari karo qoor la xoreeya addoon ma jirto laakiin 2 bilood ruuxu inuu soomo nin dhallinyaro ah oo ramadaan islaantiisa iska celin waaya xoog intee leg baa ku jira ya xoogaan yaray baa ku jira soomaalidu waxay yidhahdaan awr qooqay ma weydsana marka ma kari karo inaad iska soo istaagta ma aha karid la'aanta maxaa kalifaya miyaad xanuunsan tahay ma soomi karo meel kulul baan joogaa waa lagu soomaa soonka waajibkaaba waad ku soontaa marka ma kari karo waa inay xaqiiqi tahay ilaahayna kugu ogyahay duruuf keenayso inaadan kari karin keenaysana waa inay jirto laakiin ma kari karo keliya tawar maaha almuhim hadday xaqiiqi noqoto ruuxan inuusan kari karin kafaaradii waxaa soo hadhaya keliyata cuntadii soonkii ma kari karo waana faqiira waxba ma haysto maxaa la samaynaa markaa 2 madhab bay culimmadu qabaan say u badan yihin waxay leeyihiin 60 miskiin quudintooda dayn ku noqonaysa xilliguu heluuna bixinaya qolana waxay leeyihiin maya iyadoo dhan way dhacaysaa oo waxba laguma yeelanayo oo ruuxu sharcan wixii uu kari waayo oo takaaliifta shareecada ka mida way ka dhacaysaa dayn sii saarnaanaysana ma jirto waana madhabka xanaafilada iyo shaaficiyada weji daciifa oo ay leeyihiin waaye waxaana sidaasi sidoo kale qaba oo rajaxaya culimada qaar ka mida sheekh ibn baaz iyo culimo kale ayaa sidaa rajaxaya inaan waxba lagu lahayn ibn baaz ibn uthaymiin iyo maxaa yeelay waxay soo hosgelaysaa nusuustii ahayd marka laa yukallifu allahu nafsan ilaa wuscaha iyo muxuu ahay fattaqu llaha ma statactum iyo meelahaasu markaa gelaya waa markay noqoto karid la'aan xaqiiqiya waay wallahu aclam jazaaka allahu khayran wbaaraka allahu fiik saa'ilka tobnaad waxa uu leeyahay sheekh waxaan ku shaqaynaa shaqada kalkaalisanimada waxaan ka shaqaynaa meelaha dadka waaweyn ee dhimirka ka xanuunsan lagu xanaaneeyo waxaan siinaa dadkaas daawooyinka sheekh meesha daawadu ku jirto sidoo kale waxaa loo geliyaa oo ku jira sigaar
marka qofkii xanuunsanaa uu ku imanayaa waxa uu ku leeyahay isii sigaarkaygii furihii meeshana anaa haya marka haddaan siiyo sigaarkaas shaqadaydu maxay noqonaysaa isla su'aashaas qaybteeda kale waxa uu ina weydiinayaa saa'ilku sheekh meesha dadka waaweyn lagu xanaaneeyo marka qof nagu dhinto annaga ayaana laga rabaa inaan ka furfurno qalabkii ku xidhnaa sida oksijiinka iyo wixii la mida sidoo kale inaan isku duno qofkii xanuunsanaana annaga ayaana laga rabaa markaa sheekh haddaan sidaa sameeyo maxaa iga soo gaadhaya su-aasha hore waxa weeye inaad ruuxaad sigaar siiso waa tacaawun cala alithmi waalcudwaan waaye waxaad ugu kaalmaysay dembigii iyo xadgudubkii ilaahayna wuxuu yidhi walaa tacaawanuu cala alithmi waalcudwaan ruuxa khaladka samaynaya ha ugu kaalmaynina marka ruuxa waayeelka iyo ruux kaleba sigaarkii inaad uga soo saarto khasnadda ama aad kiyooska uga soo iibiso ama aad dabkaba ugu daartaba iigu daar intuu ku yidhaah kullu daalika wax weeyaan waa caawin waaye kaalmayn waaye waana dembi muxuu ahay qur-aanku diiday waaye su-aasha labaad dadka dhinta meelaha horta dadka waaweyn ay ku nool yihiin asalku waxa weeye diinteenna maadaama ay jirto gurigii muslimkaa dhisan yahay oo qoyskii dhisan yahay oo waalidkani inta badan ilmo leeyahay oo uu leeyahay asal leeyahay oo qaraabo leeyahay oo walaalo leeyahay oo uu raxim leeyahay haddii uu da' noqdo ma dayacmo in guryo xanaano la geeyana uma baahdo dadkiisii baa gacanta ku haya iyagii baa daryeelaya hadduu dhintana iyagaa aasaya laakiin meesha lagu ba'ay waa waddamada reer galbeedka oo qoyskii burburiyey gaalada qoyskii hadday burburiyeenna waxaa ka dhalshay oo waalidkii ilmihiisii bay ka kaxeeyeen marka ugu horraysaba ilmuhu isagoo yar ayaa waxaa laga dhaadhicinayaa waalidkii inuu cadow u yahay mudan in laga ilaaliyo saas daraaddeed ilmaha wax yar haddii lagu arko maantana waxaa laga dhaadhicinayaa laleeyahay soo sheeg waalidka hadduu wax ku gaadhsiiyo xagtin yar haddii lagu arko ma waalidkaabaa ku gaadhsiiyey waxay imaanayaan oo leeyihiin maxaa la siiyaa ilmaha maxaa farinjeerka ku jira ilmaha see loo quudiyaa waar ilmahan anaa dhalae ma idinkaa iga xiga ma idinkaa iga lex jeclo badan ilmihii marka waxaa laga dhaadhicinayaa isagoo yarba inay dowladdu u tahay naasix waalidkiina cadow ku yahay waxaa kaleeto oo laga dhaadhicinayaa inuu cabiidsi ku jiro oo uu ka bixi doono xoroobi doono markuu qaan gaadho wabitaali wuxuu sugayaa inuu gacanta waalidka ka baxo qaangaadhku sugayaa markuu qaan gaadho wuxuu noqonayaa sidii maqal xero laga sidaayoo kale ama shimbir qafaskeedii laga sidaayoo kale waa cararay dhaqaaq ilmihii waalidku korinayey waalid ma yaqaano hooye ma yaqaano aabba ma yaqaano danka ma laha hadday rafaadayaan hadday duqoobayaan waxay keentay mar hadday qoyskii burburiyeen waalidkaa soo dhacay marka in loo sameeyo meelo guryo iyo meelo lagu xanaaneeyo oo dowladdu kharash ka bixiso innaga marka waxa weye dad naadira ku soo dhici kara mas-uuliyadda dowladda ku soo dhici kara laakiin dadka waayeelka intooda badan ehelkoodii baa u taagan imaa yabluganna cindaka alkibara axaduhumaa aw kilaahumaa falaa taqul lahumaa uffin walaa tanharhumaa waqul lahumaa qawlan macruufa qul lahumaa qawlan kariima waqfid lahumaa janaaxa adulli min alraxmati waqul rabbi irxamhumaa kamaa rabbayaanii sagiira waa xilligaba ayuu shareecadu si dooniya uga dadaashay uga hadashay taa mid waaye waddamada gaalada marka waayeelka noocaas oo kale ah in meelahooda laga shaqeeyo oo gacanta lagula jiro qashinkooda oo xafaayadooda iyo kaadidooda iyo saxaradooda iyo gacanta lagula jiro oo halkaa wax laga raadiyo shaqo quruxsan maaha haddaad korkaa ka caawinayso oo ama daawo u qorayso ama muxuu ahay kor kala soconayso ama kor ka maamulayso masale kale waay
laakiin in fadalaadkoodii iyo qashinkoodii iyo gacanta lagu hayo oo laga nadiifiyo halka ruuxa muslimka risq ka raadiyo waa shaqo wadiica waay waa shaqo aad u liidata waay taa markaan intaa kaga soo gudbo ruuxa haddii uu dhinto cidda kafantiisa muslim hadduu yahay ama asturkiisa hadduu gaal yahay iyo isku aadintiisa mas-uuliyadda waxay fuulaysaa oo hawshaa qabanaya ruuxa dhintay cidda ku jinsiga ah dumarka dumar baa qaban raggana rag baa qaban dumarka la dhihi maayo nin dhintay faraha la gala allahuma inuu ninkeedii yahay mooye haddii ninkeedii uu yahay way dhaqi kartaa wakadalika ninka xaaskiisa uu dhaqi karaa laakiin wixii intaa dhaafsiisan dumarka dumar baa dhaqi dumar baa kanfi dumar baa isku hagaajini markaa kadib baa la aasaya raggana sidoo kale rag baa hawshooda qabanaya laakiin adiga oo dumar ah nin ajnabi oo dhintay oon rag loo waayin isku dow oo hagaaji oo meydkiisii rogrog sax maaha iyadu arrin khalada waa in halkaasi risiqu kaa galood wax ka raadsatood hunguri ka raadsatona waa khalad wallahu aclam jazaak allahu khayran wa axsan allahu ilayk saa'ilka 11aad waxa uu leeyahay sheekh waxaan ahay qof caafimaad bartay oo waddankiisa wax ku bartay haddaan waddan kala tago oo aan waddankayga ahayn oo aan sharcigooda qaato kadibna ay shaqay siiyaan kadibna aan sidaa mushahaar ku helo oo ay iila dhaqmaan sidii qof waddankooda u dhashay oo kale waa sidee xukunka lacagtaasi sheekh haddii aad aqoontaada ku shaqaysanayso iyagana aadan khayaamaynin iyagaa sharciga ku siiyey waxbaad baratay waxbarashadaadiiba iyo aqoontaadii baad ku shaqaysanaysaa wax isdoomarin kuguma jirto been kuguma jirto khayaana kuguma jirto iyadaad mushaahar ku qaadanaysaa iyo xaq waa xalaal wey ruux xirfadiisa ku shaqaysanaya ama dhididkiisa maalayaa tahay waxaan la ogolayn waxa weeye gaal iyo muslim toona been in lagaga shaqaysto khayaano lagaga shaqaysto cidaad la mucaamalanayso ama gaal ha noqdo ama muslim ha noqdo taa iyadaa lama ogola laakiin waddankaagii ha noqdo ama waddan kale ha noqdo hadday iyagu ogol yihiin oy shaqo ku siiyaan oy sharcigooda ku siiyaan dhib ma laha wallahu aclam jazaak allahu khayran wa axsan allahu ilayk saa'ilka 12aad waxa uu leeyahay sheekh gabadha dhiigga caadadu uu ku dhacay qur-aanka ma akhrin kartaa kitaabkase ma qaban kartaa waa laba mas'alo oo labada masaleba khilaafiya waaye midda hore oo qur-aanka ma akhrin kartaa haddaan ku hormarno say u badan yihiin fuqahadu waxa waaye inaysan akhrin karayn waxay deliishadeen aayado qur-aanka ka mida laakiin dilaaladooda iyo inay sidaasi loo deliishado dood badani ku jirto aanan masalada ku caddayn waxay kaloo deliishadeen axaadiid ku soo aroortay isla masalada lafteeda ama ay uga qiyaas qaateen ninka janaabada qaba axaadiistaasina kulli wax sugan maaha waa wada daciif aqyisana waa deliishadeen madhab kalaa jira oo dhahaya haweenaydu markii caadada qabto qur-aanka way akhrin kartaa mutlaqan waxaana madhabkaa qaba waa qowlu lishaaficiyi qadiim imaamu shaafici qowl hore uu lahaan jiray weeye waxaana doortay ibnu xasmi alimaam ibnu xasmi aldaahiri sheekhu islaam ibnu taymiya iyo culimo badan baa dooranaya waxaa kaloo sidaa qaba alimaamu albukhaari waxaa doortay ibnu mundir oo ka mid ah fuqahada muxadisiinta sidoo kalena shaaficiyada ah inay akhrin karto qur-aanka waxay ku salaynayaan ooy leeyihiin wax daliil cad oo diidan lama hayo masaladu masalo caanay ahayd dumarku qayb dhan oo bulshada ka mid ay ahayd qur-aanka inay akhriyaanna cibaado weyn bay ahayd wakhtigii nebigu oo qur-aanku degayo rasuulkiina nool yahay
baahidaasina taagan tahay wax nas oo ku cad oo diidaya inaan la helin maxay ku tusaysaa bimacnaa waxa weeye inay bannaan tahay bay ku tusaysaa masaladu say muhim u tahay bulshada dhexdeedana ugu baahan yahay u faafsan tahay waa in loo helo nusuus cadcad oon hadalgeli karin oo fara badan loo helo waayo haddii loo waayo bimacnaa waxa looga aamusay bay qabtaa shayga haddii laga aamuso bimacnaa wax weeye waa cafi waayo waa bannaan yahay waayo wax nas oo cad oo diidayana lama hayo alimaamu albukhaari caleyh raxmatullahi wuxuu u daliishaday inay qur-aanka akhrin karto gabadha caadada qabtaay xadiidkii wuxuu u daliishaday caaisha markii caadadu ku dhacday iyaga oo muxuu xaramka sii galay oo sii socda oo ay iyadoo ooyeysa nebigu usoo galay sal alla alay wasalam wuxuu ku yidhi ifcalii kamaa yafcalu alxaaju hayra an laa tatuufii bilbeyt wixii xaaji sameeyo oo dhan samee laakiin kacbada un ha dawaafi wuxuu u daliishanayaa wuxuu leeyahy xaajigu wuxuu sameeya waxaa ka mid ah qur-aanka akhriskiisa gabadha caadada qabtaa lala hadlaya istidlaalkaa laftiisa muran baa ku jira waa laga doodaya almuhim warka marka la soo ururiya waxa weeye gabadha caadada qabtaay axaadiista qaarkood uga qiyaas qaateenoo junubku inuusan akhrin karin qur-aankana iyada lafteedu dacfi baa ku jira mar hadday sidaas tahay asalku waxa weeyaan inaan gabadha qur-aanka akhrisa loo diidi karin ilaa bidaliil cad mooye daliil cad haddii la waayo asalku waa inay bannaan tahay waa culimmada madhabkaa qabtaana masalada xoog badan waa ina akhrin karaysaa masalada labaad oo ah qur-aanka misxafka taabashadiisa iyaduna khilaafkaasoo kalea ku jira iyadana khilaafkaasoo kalea ku jira haba ka daciifsanaado oo madaahibta afartii waxay qabaan inaysan taaban karayn laakiin fuqahada iyo muxadisiinta qaarkood inay taaban karayso iyagana qaar baa sidaa qaba masale khilaaf ku jira waay iyada lafteeda xadiid baa ku soo arooray dhahaya laa yamasu alqur'aana ilaa daahir qur-aanka yuusan taabanin ruuxaan daahir ahayn marka xadiidkaas sixadiisaa la isku haystaa waxay leeyihiin mursal weeye waa nooc daciifka ka mida qaar waxay leeyihin waa xoogaysanayaa xadiis kaloo soo arortay ku xoojinayaan haddana mar kale waxay ka doodayaan daahirka la leeyahay qur-aanka yuusan taabanin ma ruuxii daahirka ka ahaa xadadka yaroo weysada u baahnaaba mise xadadka weyn ruuxii daahirka ka ahaa ee qabayska u baahnaaba yacni waxa weeye aan u baahnayn baa kee waaye dilaaladiisa haddana muran ku sii jiraa marka saas daraaddeed baa xanaabiladu waxay leeyihiin way taaban kartaa haddii iyada iyo misxafka wax u dhexeeyaan oo masalan ay mara iyo wax iska xijiso ama gaalfiska gacmaha la gashadoo kale ay gashato masale murankeedu badan yahay waaye marka iyada lafteedana wax nas cad ah oo diidaya oo xagga dilaaladiisa iyo sugnaantii hubuudkiisa iyo dilaaladiisuba ay caddahay oo diidaya lama hayo sidii loogu baahnaa iyo say caan u tahay iyo daliil cad la-aantiina waxay xoojinaysaa inaysan iyaduna bannaan tahay wallahu aclam jazaak allahu khayran wbaaraka allahu fiik saa'ilka saddex-iyo tobnaad waxa uu leeyahay sheekh ilmahayga qaar ayaan ka shakiyey waayo aniga iyo hooyadood midna uma eka markaa sheekh ilmahaas maxaan ka sameeyaa adigu hooyada iyo aabbaha mikeed u eg tahay waay ma laasim baa ilmuhu inuu waalidku u ekaado waa faham khalada waaye masaladaasoo kale wakhtigii nebigeennay dhacday sal alla alay wasalam nin baa rasuulka u yimi sal alla alay wasalam kamaa fii saxiix albukhaari wa muslim marka wuxuu ku yidhi rasuulka ilaahay ow islaantaydii waxay dhashay wiil madow anigana iima eka hooyadiina uma eka marka wuxuu rabaa inuu diido yidhaahdo ma dhalin nebigu wuxuu ku yidhi sal alla alay wasalam geel ma leedahay haa buu yidhi geelaaga midabadiisu waa nocee wuxuu yidhi waa xumrun waa geel cascas hal fiiha min awraq buu ku yidhi ma ku jirtaa mid midabkeedu caddiin madow xigeenaya haa buu yidhi xaggee midabkaasi uga yimid taa iyada haddiiba geeligii wada gudgududnaayoo cascasaa tan midabka goonigaa wadata xaggee ka keentay buu ku yidhi
markaasaa wuxuu ku yidhi lacalahu nasacahu cirqun aw lacallahaa nasacahu cirqun waxaa dhici karta xidid hore inuu jiitay oo isirkii asalkeedii hore hooyooyinkeedii ayeeyooyin iyo awowye iyo xaggaa ay ka timid in xidid hore uu jiitay baa laga yaabaa buuri nebigu wuxuu ku yidhi sal alla alay wasalam haddaba wiilkaagana waxaa laga yaabaa lacalahu nasacahu cirqun isagana inuu xidid hore jiitay baa dhici kara buuri waxay ka muuqataa nebigu sal alla alay wasalam ninka geelu ahaa ruuxsiisa wuxuu fahmaya wax lagu fahansiiyaa reer magaalka haddaad maanta dhan geel uga hadasho maba fahmayaan geel marka maxaad ugu miisaalinba ninkaasi marka nebigu wuxuu ku fahansiiyey geelii uu yaqaanay buu uga keenay tusaale marka ilmaha hooyana wuu u ekaan karaa aabbana wuu u ekaan karaa intuu ka boodo wuxuu aadi karaa awooyo iyo ayeeyooyin intuu leexdo wuxuu aadi karaa adeero iyo abtiyaal buu aadi karaa intaba intuu ka boodo wuxuu aadi karaa aadamkii kore aadamkii aan ka soo bilaabannay buu hadduu doono aadi sidaas daraaddeed sax maaha madowgani waa midab sida nebigu sheegay sal alla alay wasalam aadam oon asal ahaan ka nimid baa midabadan lahaa carradii laga abuuray baa intaasuu midab ka koobnayd midab cad qayb baa ahaa casiinka qaar baa ahaa madowga qaar baa ahaa carrada intaasoo midab leh baa la ysku qasay aadam baa laga abuuray carruurtiisu marka waxay ku yimaadeen midabadii carradu ay lahayd bay carruurtiisa ku yimaadeen sidaasay marka u qaybsamayaan tumaariinaa ku jirtay marka ilmuhu abtirka iyo nasabka tuhmo looguma diidi karo si fududna loogama saari karayo loogama anfin karayo hore baan uga soo hadalay in nasabka in ilmaha loo suga shareecadu ay aada u adkayso ninkii xaaskiisa laga zinaystay oo muxuu aha ilmihii lagu murmay nebigu wuxuu uhi sal alla alay waslam alwaladu lilfiraash walilcaahiri alxajar marba haddaad islaantan qabtood xadhig saxa kuu hayo ilmahana ay dhashay gogashaadii buu ku dhashay adigana suurtagalkaa yahay adaa dhalay haddaad diiddo oo tidhaahdo ma dhalin oo ilma aad dhashay aad abtirka u diiddo maalinta qiyaamada ilaahay markaad u timaaddo waa iska kaa xijaabaya waa dembi aad u weyn waa marka laguma fududaan karayo ilmahan midabkaygii ma laha iyo noome eka iyo nuunuudaasi wax soconaya maaha wallahu aclam jazaak allahu khayran wbaaraka allahu fiik saa'ilka 14aad waxa uu leeyahay sheekh nin waa gabadh waxay leedahay sheekh nin baa i qabay 4 sano weligiisna ma uusan i guri geysan hal bil buu $50 ii soo diray oo 4 sano ka mid ah waxaan ogaaday inaanu rabin inuu i dhaqdo waan weydiiyey wuxuuna yidhi inaan ku dhaqdo ma rabo markaas baan ku yidhi ifur haddaanad i dhaqanaynin isagiina wuxuu yidhi ii soo celi lacagtii aan kugu mehersaday oo ahayd $1,500 haddii kale 3 maalin baan ku guri geysanayaa kadibna waan ku soo furayaa ama weligay waan ku qabayaa mana ku dhaqanayo mana ku furayo sheekh lacagtaas $1,500 ee uu dhahay hala ii soo celiyo ma loo celin karaa maadaama oo uu leeyahay madaxaaga kuma siinayo ilaa aad lacagtii aan kugu guursaday ii soo celiso mise waan isfasaqi karaa ilaahay qur-aanka wuxuu leeyahay wacaashiruuhunna bilmacruuf dumarka aad qabtaan si wanaagsan ula dhaqma aayad kalena ilaahay wuxuu ku leeyahay faimsaakum bimacruufin aw tasriixun biixsaan ama wanaag ku haysta oo xuquuqdooda siiya ama si wanaagsan u sii daaya 4 sano inay ku nikaxsanaato oo 4 sanoba uu ka maqnaado oo 4 sano $50 bas u soo diray ma aha bil walba ma aha 4 sano $50 bas u soo diray bakhaylnimada ka badata iyo gacan adaygiisa 4 sano gabadha diyaacnayd ee uusan biil la siinin ee uusan masruuf siinin ee uusan marasho siinin ee uusan meel dejinin oo 4 sano u sabraysay ayaa markii way ogaatay inuusan u soo soconin tiri wariyo iska kaysiidaa
ayuu haddana wuxuu leeyahay waxoogaagii meherkii igaga baxay ma aqaan 1500 ii soo celi khasiisnimo meeshii ugu dambeysay waay dulli waay kaas in hadda la yiraahdo lacag hal la siiyo hal lagu madax furtana sax maaha waxa lagu leeyahay 4 sano gabadha biilkeedii masruufkeedii baa lagu leeyahay markuu biilkii iyo masruufkii meesha soo dhigo 1500 ha goosto gabadhana ha furo laakiin xuquuqdii la igu lahaana waa la maqnaanaya gogoshii gabadhan intaasi muxuu ahay aad ku seejisayna iyadana way kugu maqan tahay haddana waxoogaagii yaraa ka baxay baad rabtaa iyada xuquuqdeedii dayacdayna wax ka soo qaad male gabadhaasi maxkamadda ha tagto indhihiisa 5 aan hays fasaqdo way u banaanta gabadha sharciga ha tagto hays fasaqdo ha cidda tirsato ninkay doonto ha guursato ciddii 1500 uu ka heli lahaa marka hal arko wallahu a'lam جزاك الله خيرا وبارك الله فيك سائل كشان يتبنات وحولي يا شيخ قرآن كهدان دقيستو أما أن عندها كأخريو سام كنا قنيسا إن أن أخريي أو كله أو ملاي هاي أجر كيسي قرآن كدقيسي جيسا أو كليه أجر بالغهلا وعباده إسكيد وبضح بلال وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا dhageysta oo u dhagraariciya quraanka marka la akhrinayo dhageysigaasi baa cibaado madax banaana ajir baad ka heli saas daraadeed baa nabigeenu sallallahu alayhi wa alihi wasallam kama fi sahih wuxuu ku yiri Abdullah ibn Mas'ud yugudul akhri quraanka mubayba hamisa Abdullah ibn Mas'ud markaas wuxuu ku yiri rasuulka Ilaahay oo adaab lagu soo dajiyay miyaan ku dul akhrin adaab lagu soo dajiyay ورسولك صلى الله عليه وسلم يقول الأخري وحن جعلها إن عدان أنيق أهين كده جيسته سورة النساء وكب بالله نحن مركم مريو وكا نبي تشوتشكور صلى الله عليه وسلم كدبنا نبي إلمين يارك مركب نجيسك سي أهانتي سو عبادوية وحكى له إسقى عبادة قوني دي ساعة قرآن كإراد إيش إنتاد مريسو المرين كلية ماهي آد معاني دا تدبريس وفي رضا عضايات دا فيرين إيسو معني هذي با قلبي قاقا كسعودة وتفير فيرين إيسا تانا السيقوري واتقران كوقاها اللي أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته تدبرك مرنا أخرين بالله سعوتا marna tadabbur keligii buu noqon karaayo fiira aad ku tadabburto marka labaduba waa cibaadaad laakiin akhrin aan tadabbur la socon waxaan dhihi lahaa ilmarin aan tadabbur la soconin akhris ma akhriski ma yahay ama la ajir ma yahay hadaad weydiiso akhriska waa inaad carab ku dhaqdhaqaaqo oo xuruuftii akhrido waa haddaadan xuruuftii akhrin oo carabka iyo afka iyo ayna dhaqdhaqaaqin oo makhaariijtii xuruufta aadan ka soo saarin akhris lama yiraahdo markaa fiira mujarrad ah oo tadabbur la soconin ayaduna macna ma sameynayso haddaad markaa dee barasho u soconin oo baranaynin oodan arday ahayn wallahu aclam جزاك الله خيرا وبارك الله فيك سائلك اللحية بناد وحولي يا شيخ وسؤالك سؤال نقطي سؤاله دراد gabadhu walaalaheeda agoonta ah sakaday bixinayso ma siin kartaa waayo gabadha ma saarna waajibka quudinta walaalaheed sida culimada badankood qabaan hadii walaaluhu ay yihiin masaakiin ama fuqaro sideedii sinfi ee sakada سورة التوبة إلهي كل شيء سكذا لوجو تلقلي لو قيبيني مصاريف الزكاة هذا يسوق جلال ولا سينكرا ولا النمذ أدي دي ميس هذا النمذ أدي دي ميس إيه النمذ أدي دي ميس هذا النمذ أدي دي ميس حكت النمذ أدي دي ميسو إيه قرابة النمذ وإلا جهلون صفات كي ومسكين وفقير وابن السبيل ومحو ay socoto way saahid ba ka gooday waa in laga helo
أصنافتي سيدة ميد كميد نصوص قلوا إنت أصلا مهمة كلية توحان لأقليل وسيء بديهين زكاة اللسين كرينيل عدي أديك أتكفر عن تو والد كوها أبها هو يدا أوو أييوين لأن كوها سحولها يحكولي واجبين كوكوتها يدي باهيهين إن أدباهي ترتو كذلك عرورتها هذا الشيء يكون يصير دليل أيجنا السكذا لما سينكروا لأن أيجنا واجب كوكوتها هدي باهيهين أدون هذا حيسته إن هذا نلاش هذا وحكا قبض لوضع مرك لجرب وقرابة إن حياها كإيمانيسا أيجا وحوي زكذا والله بحين كرا ولا لها وصهرية فهذا أدير كوتهاي أدير رضا هذا كوال سينكريه لما لها بل أيجا فضل بدن إن سكذا يصدق هذا الشيء وحيسوق لي حديث النبي قال صلى الله عليه وسلم الصدقة على المسكين صدقة مسكين أن قرابة أهل وحي آتسي سوى الصدقة أجر كذا كل هذا والصدقة في ذي الرحم روح قرابة حكتدا صدقة الله سيانا وصدقة وصلة صدقة أجر كذا نويلادها قرابة حرير نوي كجرتها مركا أيجا بسيم وضم بهدي باهيهن سكذا هذا يا صدقة هذا ولا لها بسيم وضم يدتك حكتدا هذا قرابة هذا يجانا أجر كسيادة اللي هليا والله أعلم. جزاك الله خيرا وبارك الله فيك. سائلك تضبية مناد وحولي يا شيخ وحن لي يا تراك كشقيا ودن كمريكنكا أنا قمت شوقه ودن كاس سيدا درتيد وحا وقاضو لما الصعدو هدي أنا قوان أوغين وقاضو خمري أما وحيابا حاران lacagta iiga soo baxda taraagaas aniga ma iga xaraan ba wixii aadan ogeyn shariicadu kuguma kalifin wixii aadan ogeyn mala iyo ismoodsiisna laguma dhiso asalka mucaamalaadku inay banaan yihiin baa asala wixii aad hubto ama aad ogaato baa la dhihi karaa waa xaraan ama waa khaldan yihiin لكن خمر لقادا إيو ضفار بالقادا جود وحي قادين هذا كور هيلل تا يدا وحكم حرام وبان لكن ضدك مسؤول كاجا كاريجا هيا مضرب كهالنقطة كلام مسؤول كاجا هالنقطة كوا كلا دردارا إلى كتحدران وهي لا حرام تقاضي هذا هذا الجرينيل ومركزي أديك أقول تراجع الشقيني والحول لقاك كينيو هذيك أنا تحدرتي يجنا فرتي مركز وحي حلال واي هدي انت لقاضو حرام ودفار أما خمره أما وحش رعدو حرامسي هدي لقاضو لأوجادو مركز وحي كسب حي هلا صدقي إسلافي ومصالح العام كمسلمين تكون بحي والله أعلم. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. سائلك سجدي طبنات شيخ فاتحة قف عن معناه إذا قرنا إن صلاة دا ملقا أقبليا ها ولا أقبليا وأصحي صلاة لأنه فاتحة أخرس كذا آيات تير كم إذا تيرن كصلاة لكن فهم كذا تير ما فهم كذا ومعنى السيادة ووحو قلا خشوع ذو قلا ساس دراديد بان نبي موسى نهين من لم يفهم فاتحة الكتاب نهين يوحو من لم يقرأ بفاتحة الكتاب روحان أخرين فاتحة صلاة بلها مركا أخرسكا أي لازمة فهمك ومعنى زيادة ساس دراديد بان أركل علماء عيد كمدا oo tiri faatixada ruuxan fahansanay salaadii suma asaxayso wax dhahay markin marka akhriska uu inaad saxdo waay inaad akhriska saxdo oo aad xuruufta akhrintooda saxdo intaas muhiima salaaduna sida way ku asaxaysaa wallahu a'lam. جزاك الله خيرا وأحسن الله إليك. سائلك سقالية تبناد شيخ وحوليه هي وحلا يراه هذا الله منحه أو نحرسته
حيت الشيخ معنى هيدو soomaali baa tayaa kelimaduna waa soomaali mahmaadu soomaali waaye marka alla ma naxo waase naxariistaa adiga naxariis iyo naxdin ma kala duwan tahay naxdintu waa sifatu naqsin naxariidsuna waa sifatu kamaal naxdin maxaa la yidhaahdaa naxdintu waxa weeye waa ruux wuxuusan filaynin ku yimid kadibna baqdin gasha soo maa waxaadan filaynin inuu kugu yimaado waa waxaadan ka warhaynin oo hoday uga warhaynin mid ilaahay waxa dhacaya kama warhayo miya waa mid labaadee baqdin miya ilaahay gasha maya sidaas daraaddeed naxdintu waxaadan filaynin oo kugu yimaadaa keena iyo sabab aad jaahil ka ahayd oo si kadaa kugu dhacday sifa ahaan markay kugu dhacdana waxay tusaysaa naqsi oo baqdintu waa nooc naqsi iyo dhimanaan ah ilaahay marka waa ka nasahan yahay sifaadka naqsiga laakiin sifatu raxma waa sifatu kamaal ilaahayna waa isku tilmaamay qur-aanka kariimka nebigusuna waa ku tilmaamay alla waa naxariistaa magacyadiisana raxmaan iyo raxiim baa ka mid ah sifaadkiisana sifatu raxma ka mid marka waa sax ilaahay ma naxo waase naxariistaa wallahu aclam جزاك الله خيرا وبارك الله فيك سؤال شلباتناد قبل با سو قرتay sheekh waxay tidhi sheekh qof isixray ma cafin karaa horta inuu ku sixray waxay u baahan tahay in la sugo ma asaga ku qirtay ma marxaati baa la helay waxaan saa u leeyahay waayaan waxa aad u badan oo fitna ah qoliyahan dadka quraan saara oo inta badan meelaha u furta oo intooda badan jaahiliin oo aan diinta wax badan ka aqoon laakiin uu ganacsigu meesha ka galay ayaa waxay sameynayaan dadka ay quraan saarayaan ayaa wuxuu leeyahay mid baa hadlaya wuxuu leeyahay hebel baa ku sixray hebla ku sixirtay islaantii lagula qabay baa ku sixirtay xaaskaagii baa ku sixirtay waxbaa ka dhaxadlaa warkii isaga ahaa buu rumaysanayaa isaga dhageysanaya markaas hadhow ruuxii wuxuu ku leeyahay waxaa ku sixirtay dangaladaadii dangalada ma taqaanaa waa islaanta lala qabo dangaladaadii baa ku sixirtay ama isla ninkii wuxuu ku leeyahay xaaskaa ku sixirtay ama gabadhii wuxuu ku leeyahay sodohdaa baa ku sixirtay oo xagee markaad hadlaysay baa yaa dhexdaada laga sheegay kaasi waa mufsid waa mufsid ummadda in laga qabto u baahan waana nin shaydaan u adeegaya waay xataa hadduu sheekh gadh leh oo koofiyad watayah waa nin shaydaanku ku adeeganaya waay maxaa yeelay waxaan ka dhex hadlaya ruuxa muxuu yahay ya xataa hadduu yidhaahdo muslim baan ahay ma laga rumaysan karaa lagama rumaysan karayo shaydaan baa marka intuu kuu soo dhexgalay ruuxii xanuunsanayay ayuu wuxuu kuu isticmaalo kuu adeegsaday inaad dadka isku dirto oo wuxuu isagu toos u gaadhi kari waayey buu adigu kuu isticmaalay waana shaqada ugu muhiimsan oo shayaadiintu qabtaan in dadka muslimiinta la isku diro asaga marka toos buu u qaban waayey adiga oo marka wadaada yuu kuu soo maray warkiibuu kuu soo dhexgalay sheekadii baad rumaysatay qaar waxay leeyihiin maya muslimnimuu ii sheegtayoo wuu ii dhaartay ya oo shaydaanba aadan buu u dhaartay waqaasamahumaa innii lakumaa la min annaasixiin isagoo khayaamayuu u dhaartay marka see ku rumaysanay adigu shaydaan iyo wax meeshan ka hadlaaya muslim baan ahay oo ii dhaartay iyo mufsid waaye kaa in dadka laga qabto u baahaya wayna badanta qoysas badan oo ku burburayna waan ogsoonaya dad badan oo soo wacay oo isku mushkilaysan oo dhex galay oo wadaad uu fidneeyay noocaasana waa jiraan marka warkaa lama rumaysan karayo waa in ruuxan uu isixray marka la leeyahay ama qiraal la hayo oo isagu qirto oo yidhaahdo waan ku sixray ama la helo markhaati iyo caddaymo rasmiya la helo oo markaasi caddaynaya inuu sixirka sameeyey
haddii caddaynta la helo markaas saaxirka xukunkiisu say culimmada badankood qabaan waa inuu gaal yahay dembi weyn oo dunuubta ilaah laga galo kuwa ugu waaweyn ka mida kuma filla bal culimmada badankood waxay qabaan biduuni tafsiil sixirkiisa isagoo la kala qaadqaadin inuu diinta ka baxayo imaamu shaafici baa tafsiil geliyey oo dhahaya ha la fiiriyo sixirka wuxuu u isticmaalay wax gaalnimo keenaya hadduu yahayna ha gaaloobo hadduusan gaalnimo keenaynin wuxuu isticmaalayna markaasi iyaan gaalnimo la gaadhsiinin xukunkiisa kaleetana waxa weeye xaddiisu in la dilo madhabkii saxaabadu sidaasuu ahaa cumar xafsata bintu cumar saxaabadu ninkii sixir ku sugnaado waa la dili jiray kow marka dhankaasi waa xukunkiisa waay amaa ruuxii la sixray hadday sugnaato inuu sixray ma cafin karaa mid waad cafin kartaa adiga khaladkuu kaa galay iyo dhibkuu kuu geystay intaad nooshay waad cafin kartaa laakiin xaqii ilaahay uu ka galay kaa ilaahay buu la hortegi aduu ma cafin karta ila laba waaye waxna waa dhib adiga lagu geystay waxna waa khalad addoonku ilaahay uu ka galay dhibka adiga laguu geystay wax weeyaan intaad nooshay waad cafin kartaa oo ruuxa dhibka kuu geystay waad cafin kartaa inaad cafidana way fiicanta waa ta nusuus tilmaantay waay laakiin xaqullah oo addoonkani tacadiya xadgudubka uu ku sameeyey ilaahay baa taa iskale adiguna ma saamixi karaysa wallahu aclam أحسن الله إليك وجزاك الله خيرا إلهي سبحانه وتعالى شيخ أكاب المريو علمي قابضا وينو فايدي يسؤاله بالشدة كي يميسد فحسن وقد جوابي إن شاء الله تعالى فدقين اللحاد وحاولنا نقوم دونا بري الكاسانين وقصد سعون دونا إن شاء الله تعالى إلا أنت مسك قونتي كدمان أيان وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته